gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo maalmo ka hor sheegay in raashinka yaala Puntland aan loo iibgeyn karin meel kale. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Master Jeyte ayaa sheegay hadalka madaxweynaha Dani inuu dhaawacayo xiriirka ganacsi Puntland iyo Hiiraan ayna mowqif cad ka qaadanayaan haddii aan laga laaban. Waxaa halkan Hiiraan looga qaadaa khudaarta, xoolaha iyo subagga, waxaana la geeyaa lagaga nool yahay Boosaaso iyo Garowe. Haddii aanan laga noqon go'aankaas oo caqli Soomaalinimo la isticmaalin, dekedda kale ee Soomaaliya ku yaala ayaan u wareegaynaa. Wax kasta oo Puntland loo iibgeynayana waxaan saaraynaa canshuur labanlaab ah ayaan saaraynaa, ayuu yidhi Master Jeyte. Gudoomiye Jeyte waxa uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay kala maarmin. Waxaa kaloo uu tilmaamay in adduunka aysan jirin meel ganacsigii la kala xirtay oo cunto la'aani ka dhacday, balse keliya dhibaatada taagan ay tahay cudurka coronavirus. Gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah gobollada Soomaaliya ee ugu wax soo saarka badan loona iibgeeyo dowladda Puntland, halka gobolka uu isna ku xiran yahay badeecadaha kasoo dega dekedda magaalada Boosaaso. Maamulka Hirshabelle oo kaashanaya wasaaradda beeraha Hirshabelle ayaa caasimadda Jowhar ka bilaabay dadaallo looga hortagayo fatahaadaha webiga Shabeelle oo aad looga cabsi qabo markii la gaaray xilli roobaadkii xilligan curtay. Madaxweyne ku-xigeenka oo wehelinaya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ayaa kormeeray deegaan Bayxaw oo ay ka socdaan dadaallo looga carro buuxinayo hareeraha webiga si aysan u soo fatahin. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo wasaaradda beeraha ku bogaadiyey hawsha wanaagsan ee ay bilaabeen, wuxuuna sheegay inay garab ku siinayaan howlahan isla markaana ay diyaar u yihiin dadka laga badbaadiyo fatahaadda. Waxaana ugu baaqaynaa hay-adaha iyo dowladda dhexe inay wax nagala qabtaan fatahaadda webiga Shabeelle. Hadda maamulka ayaa shacabka ay hawshan bilaabay, waana sii socon doontaa. Waxaana u sheegaynaa cid walba oo wax nagala qabanayso inay noo timaado, waxaana ka gaashaamanaynaa inay dhicin wixii sanadkii hore dhacay, ayuu yidhi Cali Guudlaawe. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meyraan Makaraan ayaa sheegay in hawshan lagu gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa fatahaadda webiga Shabeelle, wuxuuna sheegay in la sii wadi doono ololaha ka hortagidda fatahaadda webiga Shabeelle. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meyri Makaraan ayaa ugu baaqay qeybaha bulshada inay ka qayb qaataan dadaallada looga hortagayo fatahaadda webiga Shabeelle, maadaama ay xilligan bilowdeen roobabkii ayna curteen. Waxaana cabsi badan laga dareemayaa deegaano ay ku hareeraysan yihiin webiga Shabeelle, kuwaas oo ka cabsi qaba inay ku fatahaan. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah goobaha oo aadka u saameeyay webiga Shabeelle, waxaana jira in wax dadaallo ah looga hortagayo fatahaaddaas webiga Shabeelle.